بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواتنا كنا فرحية وكشين أصحاب تقاليقا مركل إيه مقال عزب فوليا فوضت آدو جلعسن خفيف أيارونا إذن لو داغو يا سامبوس فرولة إي سامبوس كعادي ها أسدان عقاب عصري ودودوبني وقدام بيتي نساس قروح بدن أي كسر بحين ما شاء الله تبارك الله أفر اسكو ديلي تيران أن لغا شيكيني كرين هدي مرتكو إيمانيسان آد أيكو أنفعايا saan le ugu qurxinaysaa waa u jeedaan soo dhawaada daawasho wanaagsan waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidi doontaan haddii muuqaalku ku cajab geliyo like noo saar asxaabtiin usii shargareeya waad ku mahadsantiin daawashadiina waxaan soo qaatay baaquli fooliyadan raba inaan qaso waxaan kusoo shubay 2 koob iyo bar oo bur ah waxaan kusoo daray bakeeri caanaha haddaad doontid biyaha ku qasan kartaa waxaan ku daray wax yar oo cusbo ah wax yar oo saliid ah kadibna si fiican ayaan usoo qasayaa haddii ay tahay channelkan markii kugu horeysa aad soo booqato waxaan ku leeyahay soo dhawow qalbi furan iyo weli niyad saafi ah subscribe ka taawo calaamada gaduudan kadibna gambareelka taawo si muuqaal walba uu soo dhigo uu kugu soo dhaco insha Allah burkii waan qasnay si fiican oo u jeedaanba waxaa la inaa si fiican u qastid ugu yaraan 20 daqiiqo camal dhigaysaa si uu si fiican isugu dhaxgalo hadda diyaar waa intaas kadib waxaan sameynayaa waan soo gogoynayaa si yar yar ayaa ugu goynayaa waaweyn haddii aad ka dhigtid hadhow waxaa waaye asaga dhan wuxuu kaa noqonayaa bur qafiif micnaha ma noqonayo saas yariiska usoo kuskuusayaa dhammaan markaan soo kuskuusay bac qafiifan afka saarayaa waxaan dhigayaa 5 daqiiqo oo kaliya si uu burkii uu si fiican isugu dhexgalo intaas kadib hadda waa kusoo laabtay waxaa rabaa inaan fidiyo 3 xabo ama 4 xabo intaad doontid ayaad isu dul saari kartaa saa u jeedaan hadda waan soo fidiyey markaad soo fidiyo kadib waxaa la rabaa inaad micnaha isdul saartid marka hore waxaan ka dhigayaa wareeg yar yar oo isla wada eg ina isla ekaysisid waaye xabada koowaad waxaan ku shubay saliid si idin muuqato kadib saliidii ayaad ku tirtiraysaa xabada labaad ayaad soo dul saaraysaa sidoo kaleeto saliid ayaan marinayaa xabada saddexaad ayaan soo dul saaray 3 xabo ayaan ka dhigay intaas kadib waan fidinayaa markaan sidaa u fidiyo birtaawadi waa inoo kululaatay birta marka hore saliid ku tirtir birtii oo engegan haddii aad saartid waxaa waaye xabada koowaad qallaf ay ka noqonaysaa yaa saddexda wax la tuuraa malahan ku dhanfaanteen intaas kadib saliid markaad ku tirtirtid wax yar ayaa u sugaysaa dhinac kale ayaa u gudinayaa waa ujeedaan maasha Allah xabada koowaad oo ugu koreyso sheekada saasay kusoo dhamaatay waxaa sameynaysaa saas ay usoo fiiqanaysaa waa ujeedaan waxaa ka goynaysid malahan ayada dhan jiileec iyo khafiif lagama sheekeyn karo kuleeyahaada ama weel dabool ha ku sii ridanaysaa xabada labaadna sidoo kale dhinac kale u gudisas ay usoo qaadanaysaa waa kaasaa fooliya iga halawdi way iga qallaftii maxad ka rabtaa saan ayaad u sameysan kartaa ayagoo badan kadibna bac ayaa ku xiranaysaa farinjeerka daarabta inaad gelisid qaybta iska caadiga la geliyaa qaybta barafka weliga ha isku gelinin waa u jeedaan ma sha Allah tabarakallah fooliyada dhan hadda waa soo dhameynay muuqaalkayga maanta dhudhuub waan ugu qaato ma fahanteen waa muuqaal qurux badan ma sha Allah tabarakallah xaqiisa hala si like u badiya fooliyadii sheekada saas ay kusoo dhamaatay hadda waxaan sameynaynaa sambuuska caadiga ah waa u jeedaan ayada dhan qafiif ma sha Allah sambuuska caadiga ah iyo sambuus faroolan sameynaynaa saan ayaa usoo laabanaysaa fooliyadan waxaa iska fudayd saas le u laabaysaa ma fahanteen yaa buraan soo qasay wax yar oo biyo ah kadib markaasaa u laabtid qaybtan kore ayaa waxaa ka marinaysaa burkii fooliyadan waxaa waaye sambuuskan laabitiinkiisa aad u fudud yahay caruurta xitaa kula sameyn karo saas le usoo laabaysaa qaybtan kore ayaa waxaa sameynaysaa burkii ayaad ka marinaysaa burkii markaad ka marisid kadib saana ugu soo laabaysaa marka sida u soo laabtid kadib waxaa sameynaysaa halka ayaa kala furaysaa hilibkii ayaa ku guraysaa oo sambuuska hilib sambuuska oo ii diyaarsan hilibka sambuuska aniga waxaan ku darsadaa maxaan ku raadaya cheese kadibna halka ayaa u gelinayaa sambuus waaweyn oo macquul ah ma sha Allah intaas kadib halkaas dhaxda waxaa sameynaysaa afkaas hore waxaad ka marinaysaa wax yar oo bur ah burkii ayaad ku tirtiraysaa oo sida u marinaysaa kadibna waa isku soo dhajinaysaa yaa waa ujeedaan fudaydkiisa sambuuska 2024 fudaydkiisa ku dhawaa kaasaa saan le usoo sameyso aad u fudud yahay ma sha Allah tabarakallah fooliyadiisana waa kaasaa
fooliya iga halawday oo iga qalaftay waan kari waayay iyo waa isdhaafaysaa ma fahanteen. Marka hore isku jimeynaysaa, markaad jimeysido isla ekaadaan burkiyaa marinaysaa. Bur aan badnayn ayaad ku tirtiraysaa. markaa sida ugu tirtirtid kadib dhinaca kale saas u soo laabaysaa. intaas kadib gudaha ayaa waxa u gelinaysaa hilibkii ku diyaarsan. maasha Allah tabaarakallah. hadaa rabtid xitaa caruurta u yartaa dhika tahay adi koolada la marinaysaa burkii micnaha ayagana hilibkii kusii guraayaan afka la isaga dhajinaysaa. waa kaasa waaba sambuus iska 5 daqiiqo ma fahanteen. maasha Allah tabaarakallah. hadda waa soo dhameynay sheekada sambuuska. saan ayaan kusoo wadaaya micnaha isagoo dhanba saan u soo habeynayaa. labadaas xabo la idinku tusiyay. waxaan rajaynayaa inaad fahanteen. dhinaca kaleeto midka oo maxaan ku iraaday duuduubka ayaan sameynaynaa ama sambuus faroole saa u taqaanidba aw fara dhaadheer aan sameynaynaa. xabadkii fooliyada soo qaadanaysaa. markaad soo qaadatid kadib qaybtan inta soo jirta waxaa saaraysaa hilibkii oo ku diyaarsanaa hilib sambuuska ama qudaar adi wixii markaa aad jeceshahay ayaad maxaan ku iraaday aad gudaha u gelin kartaa. intaas kadib labada dhinac ayaa soo qabanaysaa saas ay u soo gudinaysaa kadibna saas ay u laalaabaysaa. markaad soo laabtid qaybta u dambayso waxaad ka marinaysaa wax yar oo bur ah. waa inuu si fiican isugu dhago. ugu dambeyntii waa kaasa asagana saan ayaan ku soo dhameynayaa. xabada labaadna sidoo kaleeto qasab ma inaad isku nooc ka dhigtid hilibka. hilib sambuuska ma ahan micnaha qasab ma ahan. waxaa sameyn kartaa qudaar iyo hilibka isku hagaajisan kartaa oo kusoo sameyn kartaa. waa kaasa maasha Allah tabaarakallah. intaas kadib saliidi waa inoo kululaatay. bismillaahi raxmaani raxiim. saliidi oo karkaraysa ayaa kusoo guraaya. hadda diyaar waaye. kor iyo hoos oo ujeedaan maasha Allah tabaarakallah. saas ayuu kusoo baxay. dhinaca kaleeto waxaa noo yaala baastamiir. baastamiirkan kusoo guraaya. waxaa kaleeto noo dhiman sambuuskii oo ujeedaan maasha Allah. sambuuskana sidoo kaleeto saliidi ayaan kusoo guray. asagana markuu diyaar noqdo waa kasoo qaadaynaa. ugu dambeyntii hadda waa soo diyaarsanaynaa. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideen muuqaalka noqdo kii ugu like badnaa. dhammaantiin waxaa idinku codsanaa qof walba oo muuqaalka daawado inuu like noo saaro. waad ku mahadsantiin daawashadiina, koomentidiina iyo weliba dhiirigelintiina. waa ujeedaan sambuuskiisaas ee usoo habeynay. sakbadahan waxaa waaye sad iswato alaabaha aan gaday kamid yihiin. sambuuskii markaa kusoo diyaarsatid qurux, salarkii, basashii, yaanyadii. waa ujeedaan saas ayuu kusoo baxay. maasha Allah tabaarakallah. haddii marti ku imaanaysaan le ugu diyaarin kartaa. yaa sambuuska macnaha saan ugu qurxin kartaa. asaga dhan waa kaasa saas u jajabaaya. lagama sheekeyn karo dhadhankiisa, caraftiisa, macaankiisa. maasha Allah tabaarakallah. afur martiqaad dhammaystiran insha Allah waa idiin soo gelin doonaa. muuqaalka meel dheer gaarsiiya. kii dhaadheerka ahayna waa kaas asagana saas ayuu kusoo baxay. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideen. waxaa idinkaga tagaa kheyr iyo caafimaad. hal qof hal group inta awoodaan u shargareeya. waad ku mahadsantiin daawashadiina iyo weliba dhiirigelintiina. waxaa idinkaga tagaa kheyr iyo caafimaad.